wararka laga helayo degmada ceel waaqe ee gobolka Gado ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee wadanka Kenya ay duqeymo ka fuliyeen tuulooyin dhowr ah oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah. deegaamada la duqeeyay ayaa waxaa ka mid ah Caws Quruna, Dhamase, Likoole, Garsaale iyo Xisaguura. waxaana wararku sheegayaan in ay jiraan xoolo geelo badan oo duqeyntaasi wax ku noqday. sida ay sheegeen dadka ku sugan deegaanka la duqeeyay oo la hadlay warbaahinta magaalada Muqdisho, xaaladda ayaa degan laakiin waxaa si rasmi ah loo ogaan baaxadda khasaaraha duqeymahaasi ay le'eg yihiin. dhinaca kale wararka laga helaya degmada ceel waaqe ayaa sheegaya in saraakiisha ciidamada dowladda Kenya ay isugu yeedheen odayaasha deegaanka iyagoo ka doonaya in ay kala hadlaan kacdoon ka dhashay dad rayid ah oo la sheegay in askarta Kenya ay dishay. xiisada u dhaxaysa dadka deegaanka gobolka Gado iyo ciidamada Kenya ayaa taagneed maalmihii la soo dhaafay wixii ka dambeeyay markii la helay meydka 4 qof oo ay hore ciidamada Kenya uga kaxaysteen guryahooda. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom.